mar kale ku soo dhowow janalka. Maanta mawduuceenu wuxuu ku saabsan yahay hanka imilooyinka sare, kuwa oo ah awoodda nagu riixda inaan ka gudubno xadka karaankeenna, kana guulaysano caqabadaha, kuna gaari karno guulo wax ku ool ah, ama lahow hadaf korriin shakhsi ah, ama mid ku salaysan xirfadaada. Hanka sare wuxuu door weyn ka ciyaaraa safarkaaga nolosha. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonnaa hadduu Rabbi qadaro waxa uu yahay hanka sare iyo sida uu u dhaqaajin karo hal abuurkeenna iyo adkaysigeenna, iyo sababta diinteenna islaamka iyo dhaqankeenna Soomaaliga ay u dhiirigeliyaan horumarinta nafta iyo habnololeed ku dhisan anshax wanaagsan. Hanka sare ma ahan oo keliya mid ku salaysan rabitaanka guusha, waa awood dhinacyo kala duwan inoo jihaysa si aan u gaarno waxyaalo cusub oo suuragal noqon kara, kuna gaarno wax ka baxsan wixii aan markaasi awoodi karnay. Waxaan ku tilmaami karnaa waa matoor gudaheenna ku jira oo marka la kiciyo nagu riixa inaan wax baranno, halista wajahno, oo aan horumar gaarno. Hankeenna waxaa qaabeeya dhaqankeena iyo qiimaheena shakhsi ahaaneed. Sidaa darteed, inaad ka guulgaarto hadafkaaga waxaa mar walba laga maarmaan u ah inaad tahay qof dhowrsan oo qiimo ku dhex leh bulshada uu la nool yahay. Marka hankaagu sarreeyo kaana go'an tahay gaaristiisa, caqabaduhu waxay kuu noqon doonaan kuwa kuu sahla gaarista hadafkaaga, ee ma noqon doonaan kuwa kaa hor istaaga. Laakiin maxaa dhacaya marka aan si qoto dheer u eegno hankeenna, innagoo adeegsanayna qiimaynta qaabdhismeedka aragtida hanka sare ee dhallinyarada ee dhinacyada waxbarashada hal abuurka? Cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyey waxay na tusayaan in dhallinyarada hanka leh caadiyanba ka sarreeyaan asaagooda xagga waxbarashada. Marka hamiga lagu lamaaniyo dadaal, caqabaduhu waxay isu beddelaan fursado, kuwa uu dhiirigeliya waxbarasho joogto ah. Hamiga dhinaca hal abuurka, doodaha suugaanyahanada iyo farshaxankuba waxay muujinayaan in hanka sare uusan ahayn keliya guul shakhsi ah, balse uu yahay xalka dhibaatooyinka iyo kicinta isbeddel bulsho. Marka ay dhallinyaradu dejiyaan yoolal sarsare, waxay mararka qaar gaaraan meel ka sarreysa xadkooda, ayagoo horseeda isbeddello waaweyn oo bulsho. Hanka sare wuxuu ka saacidaa dhallinyarada ku fogaan gaarista himilooyinka waaweyn in ay ka gudbaan caqabadaha dhaqan dhaqaale, waxbarasho iyo kuwa shakhsiga ah. Haddii aan ka eegno dhanka islaamka, hanka iyo himilada sare ma ahan baahi shakhsi oo dan adduunyo keliya lagu gaaro, balse waxaa loo qeexaa inay tahay gaarista yool sare oo Alle raalli ka yahay. Waa mid ku saabsan horumar, anshax wanaagsan, iyo hiigsiga ujeedooyin faa'iido u leh naftaada iyo weliba tan bulshada. Diinteennu waxay noo tilmaamtay tusaalooyin badan oo ku dayasho mudan. Tusaalaha ugu weyn uguna wanaagsan waa Nabigeena Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, oo hankiisii iyo himiladiisii fogeyd ay sababtay in islaamku ku faafo guud ahaan caalamka. Sidoo kale wuxuu ahaa rasuulkeena mid dhiirigeliya aragtida fog ee isbeddelka ku salaysan. Waxaana tusaale u soo qaadan karnaa mas-uuliyadihii uu wakiishay qaar ka mid a saxaabada sida Usaama ibnu Zayd iyo Mucaawiya ibnu Jabal, taasoo ku tusaysa sida ay muhiim u tahay in dhallinyarada awood loo siiyo inay wajahaan caqabado iyo hogaamintaba. Sheekooyinka ku jira Qur'aanka Kariimka sida sheekada dhallinyaradii Asxaabul Kaaf iyo sheekada Nabi Yuusuf calayhi salaam iyo kuwo kaloo badanba waxayna tusayaan sida hamiga joogtada ah ay weheliyaan ku tiirsanaanta Alle inoogu hogaaminayso ka guulaysiga dhibaatooyinka adag. Dhinaca dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliga, waxaa jira mahmaayo iyo xigmado badan oo bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigeliso faa'iidada in qofku leeyahay han sare. Mahmaayada waxaa ka mid ah: nin aan hami lahayn noloshiisa waa sida geed aan caleemo lahayn. Mahmaadan waxayna tusinaysaa in qof aan hamin iyo riyooyin sare lahayn uu waayo midabkiisa nolosha, halka hanka iyo himiladu ay uga dhigan tahay qofka mid kobcaya oo bulshada waxtar u leh. Mahmaah kale ayaa waxay tiraahdaa: himilo aan damac lahayn waa sida doog aan waraab lahayn. Mahmaadan waxay tilmaamaysaa in dadaalka iyo hiigsiga wax weyn u yahay sida waraabka oo kale, oo aan la heli karin haddii aan la hamin. Haddaba sidee la isugu dheelitiri karaa hanka sare iyo waaqica markaasi taagan? Hanka sare wuxuu kugu caawiyaa inaad yeelato adkaysi iyo yool, aqoonsatana naftaada. Dejinta yool sare waxay abuuraysaa dadaal joogto ah, kaasoo aad ku gaarayso hadafkaaga, halka guulaha shakhsiyadeedna ay dhiirigeliyaan inaad gaarto riyooyin sare. Tan ayaa ka dhigan mar kasta oo aad xaqiijiso mid ka mid a yoolalka aad dejisatay ee aad ku gaarayso midka weyn, inay ku tusayso inaad hayso dhabaha guusha, dhiiranaana aad ka qaadayso midda aad xaqiijisay. Waxaa lagama maarmaanaya in hankaaga iyo qiimeyntaada shakhsiga isku dheelitirto. Arrintan ayay macnaheedu tahay inaad ogaato xuduudahaaga, qorshaha Alle iyo qadartana ku kalsoonaato. Haddii ay lagama maarmaan noqotana aad raadsato talo iyo hagis iyo taageero bulsho si aad uga hortagto niyad-jab iyo caafimaad darro maskaxeed. Arrinta ugu muhiimsan waa inaad diiradda saarto meel sare, adiga oo si adag lugaha dhulka ugu haya. Ku dadaal wanaagga, laakiin had iyo jeer hamigaaga ku lamaani
inaad naftaada ogaato una mahadnaqdo. Guulahaaga yaryar oo aad naftaada ula dabaaldegto ayaad guulo waaweyn ku gaaraysaa. Barnaamijka maanta waxaan ka fahnay muhiimadda uu hanka sare u leeyahay dhalinyarada si ay u horumariyaan korriimahooda shakhsi, guushooda aqooneed, ka guulgaaridda hal-abuurkooda, iyo horseedidda isbeddel bulsho oo waxtar leh. Waxaan sidoo kale ogaanay sida ay diinteena Islaamka iyo dhaqankeennu u dhiirigeliyaan inaan yeelanno han sare oo nafteenna iyo bulshadeenna waxtar u leh, Allana raalli ka yahay. Inaad abuurto han ku dhisan dheelitirnaan iyo anshax wanaagsan keliya ma ahan inaad naftaada guul u horseedayso, laakiin waxaad sidoo kale wax wanaagsan ku biirinaysaa bulshada. Ogow, himilooyinka ugu sarreeya waxaa la heli karaa marka ay tahay mid la jaanqaadaysa qiimkaaga qofnimo. Haddii aad barnaamijkan u aragto mid wax kugu soo kordhiyey, nagu soo biir si aad u hesho barnaamijyo badan oo kuwan la mid ah oo ku saabsan korriimaha shakhsiga ah. Afkaartaada ku aadan hanka sare waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta faallooyinka. Inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mida, waxaan idinkaga tegaynaa dadaal iyo safarka nabadda oo aad ku guulaysataan.